waan salaamay walaalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan ba waan soo dhaweynayaa magacaygu Cabdi Ducaale maanta waxaynu mar kale isugu nimi darsi gaaban oo aynu ka baranayno ereyga Ilaahay runtii aad iyo aad baan ugu raaxaystaa oo u jecelahay inaan ereyga Ilaahay dadka Soomaaliyeed ee runta la qaybsado waayo ereyga Ilaahay runtii waa nasteexo ereyga Ilaahay uu ku xoreynaya oo shaydaanka ayuu ka xoreynaya ereyga Ilaahay يعني wuxuu Ilaahay ka tusaya si aadan markii hore ee aad rumaysnayn Ilaahay ama aad Ilaah beenta rumaysnayd ka duwan oo Ilaahay wuxuu ku tusaya inuu yahay Ilaah jacayl iyo wanaag meedana kaas oo aadan runtii ka argagixin laakiin se aad ku raaxaysato oo aad jeceshahay caabudaadiisa iyo adeegidiisa Soomaalida markaan casharo Facebook-ga aan gelino bogagayga nolosha cusub iyo kuwa kale commentiga haddaad fiirisid ama fikradaha ay ka bixinayaan majority ama badankoodu waa cay iyo habaar iyo cagajugleyn iyo blackmail runtii lama yaabayo waayo dadku markay in badan shaydaanka hostage u ahaadaan ereyga Ilaahay runta ay maqlaan ereyga Ilaahay wuxuu ka keenayaa waxyaalaha ku jira qalbigooda ee shaydaanku ku abuuray xunxun oo dhan shaydaanku maadaama uusan hadli karin ma doonayo dadkiisa in ay Ilaahay gartaan sida daraadeed maadaama uusan hadli karin iyaga ayuu isticmaalayaa oo aad ka garanaysaa dadka runtii inay yihiin dad waxa ay ku hadlayaan iyo ficilkooda marka la eego dad runtii aan Ilaahay runta rumaysnayn sida marka horeba aanu aaminsanayn marka runtii anigu wax dhibaato uma arko waxay tusaysaa runtii inaan saxsanahay oo aan ku taaganahay wadada xaqa waxay igu dhiirigelinaysaa inaan dadka Soomaaliyeed ka horeeyo aan la qaybsado ereyga Ilaahay runta waqti kasta shaydaanku haddaan masiixiinahay nama cabsi gelinayo namana noomana cagajuleynayo waayo waxaan aaminsanahay Ilaaha runta haddaba maanta walaalayaal waxaan doonayaa inaan waqtigan lagu jiro runtii dhibaatada weyn ee adduunka ka taagan uu sababay gaar ahaan cudurkan hadda adduunka aafeeyay xag dhaqaale iyo xag bulshaba inaan ina xasuusiyo laba qaynuun oo waaweyn labada qaynuun oo ku qoran Injiilka kuwaas oo ay tahay waqtigan runtii inaan ku dhaqanno waxaan ka aqriyaa Injiilka sida Matthew u qoray cutubka 22aad aayadaha 35 ilaa 40 oo midkood oo sharciga yaqaan ayaa wax weydiiyay Ciise ayuu wax weydiinayaa isagoo jirrabaya oo wuxuu ku yiri macallimow qaynuunkee baa sharciga ugu weyn kolkaasuu Ciise ku yiri waa inaad rabbiga Ilaahaaga ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan kan waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horeeya ku labaad oo u ekuna waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada sharcigii oo dhan iyo nabiyadii waxay suran yihiin labada qaynuun Ciise Masiix sidii caadada u ahayd wuxuu meel wax ku barayay dad badan oo isu soo ururay wuxuu barayay ereyga Ilaahay iyo boqortooyada Ilaahay ilaa intii uu Ciise Masiix bilaabay adeegiisa waxa laf dhunta gashay ku noqday ama aad uga soo horjeeday wadaadadii Yuhuudda ee diintii Towreedda mas'uulka ka ahaa firqooyin badan bay lahaayeen laakiin wadaadada ugu muhiimsan qaybta ugu muhiimsan ee influential ama aad awoodda u lahayd waxa la oran jiray Farisiinta wadaadada Farisiinta la yiraahdaa diintii Towreedda ay sidii rabaan u fasirin jireen si iyaga u dareynaysa dadka ay uga dhigi jireen culaab waxay xataa gacan saar la lahaayeen gumaysigii markaa haystay dhulkaas oo ahaa Roomaanka gumaysigaas oo aan Ilaahay aaminsanayn
oo runtii caabudu Roomaanku waxay caabudi jireen boqorka Ilaahay ahaa laakiin wadaadadani meeshii xumaan ka gaadheen waxay la lahaayeen gacan saar siyaasadeed gumaysiga haddana aan Ilaahay aaminsaneyn sidaa daraadeed markasta Ciise Masiix waxay isku day jireen inay dabaan halkan waxa ku qoran inay jirrabaan waxay isku day jireen Ciise Masiix inay u tusaan dadka inuu diintii Towreedda uu baalmaray ama si kale u fasiray sidaa daraadeed waxay isku day jireen inay dadka Yuhuudda ee Towreedda aaminsan ku kiciyaan waxay isku day Ciise Masiix waxay weydiin jireen su'aalo siyaasadda oo waxay eegi jireen si uu uga jawaabo si ay Roomaanka gumaysiga u tusaan ninkan inuu wado kicin iyo fadqalalo sidaa daraadeed casharkeena mid wadaadada kamida oo Ciise Masiix jirrabaya ayaa su'aasha weydiinaya Ciise Masiix oo dhab ahaantii ah ereyga Ilaahay carabtu waxay yiraahdaan kalimatullah wadaadadan ku andacoonaya inay Towreedda aaminsan yihiin ee ay ku dhaqmaan wuu ka yaqaani Towreeddii dhammaad ama uga cilmi badnaa Towreeddii dhammaad ilaa bilow wuxuu u soo xigtay qaynuun ku qoran Towreeddii Nabi Muuse wuxuu yiri Ciise Masiix ugu jawaabay qaynuunka ugu horeeya ee ugu muhiimsan waxa weeye inaad Rabbiga Ilaahaaga ka jeclaatid qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan qalbigaaga oo dhan naftaada oo dhan caqligaaga oo dhan yaani waxay ka dhigan tahay bini aadan ahaan waxa tahay oo dhan Ilaahay ku jeclow waxba kala hadhin haddaad Ilaahay caabudayso haddaad Ilaahay u adeegayso haddaad Ilaahay ammaanayso haddaad Ilaahay adeecayso waa inaad ku adeecdaa si jacayl oo kaamila dhinac kasta Ciise Masiix Ilaahay noomu barin haddaan masiixiina inuu yahay bahal laga baqay oo bini aadanka argagax ku haya kuwa aaminsanna u sheega inay iyaguna bini aadanka kala argagax ku abuuraan kaasoo lagu caabudo baqrin laakiin Ciise Masiix wuxuu nabaray inuu Ilaahay ruuxiyan yahay aabahayo kale ka fiican aabaha bini aadanka oo uu nagu abuuray si jacayl leh oo uu jacaylkiisa daraadii na badbaadiyay maxaynu Ilaahay u jeclaanaynaa ereyga Ilaahay waxa ku qoran waynu jecelnahay isaga waayo isaga na jeclaaday markii hore Ilaahay ayuu markii ugu horeysay jacaylku ka yimid Soomaalidu markay Ilaahay ka fikirayaan marmar waxaan u qaataa inay u haystaan oday caraba oo middle age oo xanaaqsan oo samada soo fadhiya oo laba indhood oo waaweyn halka ka soo fiirinaya bini aadanka oo adoonsada oo laba gulwada halkan ka saartay oo waxay khalad sameeyaan qoray oo hebel eeg halkaasuu isagoo taagan ku kaajay qora hadduu ka shalaawi waayo maalinta yooma qiyaama tusaalaha ugu yar haddaan soo qaato laakiinse walaalayaal Ciise Masiix Ilaahay saa noomu barin inuu Ilaahay yahay mid adoonsada bini aadanka laakiinse wuxuu noo baray mid lagu caabudo jacayl adoon markaa tahay waxaad ku nooshahay nolol ciriiri wax kasta oo aad qabato waxaad ku qabataa baqdin kuma faraxsanid shaqadaada waxa ka buuxa nacayb iyo masayr hatta adoon intaasoo sana adoon ahaw reer u ahaw malahid wax dhaxal caruurtii hadda dhalatay ee reerka ayaa dhaxal leh marka Ilaahay adoonnimo marna Ciise Masiix kuma mataalin mid adoomo naga dhiganaya laakiin se wuxuu ku mataalay mid aabahayagana jecel ruuxiyanka Ciise Masiix wuxuu xertiisa ku yidhi mar dambe adoomo idinku yeeri maayo maxaa yeelay adoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo laakiin saaxiibo waan idinku yeeray maxaa yeelay waxaan aabahay ka soo maqlay oo dhan ayaan idin ogeysiiyey waan sii wadi karaa qaynuunkani waa mid aad u muhiim ah oo haddii aan waqti hayo ay ficnaan lahayd inaan
dhinacyo badan ka fiiriyo laakiin waxa weeye waqtigan waa inaynu xasuusanno inaynu ilaahay ku caabudno nafteena oo dhan qalbigeena oo dhan iyo caqligeena oo dhan qaynuunka muhiimka ee uu ciise masiix yidhi waa ugu horeeyaa wuxuu ku lamaaniyey mid labaad oo uu yidhi ciise masiix wuu u egyahay oo ah ku labaad oo u ekana waa kan ayuu yidhi ciise masiix waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada deriskaaga ciise masiix waxaa la weydiiyey mararka ka mid a oo injiilka ku qoran waa iyo deriskaygu wuxuu ciise masiix markaas sheegay dadkii dhegaysanaya u sheegay qisada masaalku la yidhaahdo the good samaritan ama ninkii reer samaria ee fiicnaa dadka uu la hadlaya waa yuhuud qofka uu tusaalaha usoo qaadanayaana waa samariyaan waa dad ay total yuhuuddu yasaan marka ciise masiix wuxuu tusayaa inuu deriskaaga yahay qof kastoo bini aadana oo kuu baahan faqiir ha ahaado mid qabiil aada yasto ka dhashay ha ahaado mid kaa diin duwan ha ahaado mid kaa qabiil duwan ha ahaado xataa mid cadowgaaga ha ahaado qofka bini aadanka ayaa deriskaaga ayaa ciise masiix leeyahay ilaahay uma arko wax weyn haddii aynu qaraabadeenna iyo kuwa qabiilkeena la jecelnahay wax cilmiya ama diina oo ku jirta runtii ma jirto waa caadiya inuu qofku qaraabadiisa uu dhaqaaleeyo oo uu jeclaado wax caadi xataa daayaradu way sameeyaan waad aragteen inay koox isku farcan ay isula socdaan oo ay wax isula cunaan oo territorydooda ama meeshii degan uga difaacdaan qolooyinka kale laakiin ilaahay wuxuu doonayaa inaynu sii soconno mayl kale ilaahay wuxuu doonayaa inaynan jacaylka aynu dadka u qabno aynan discrimination ka dhigin marka deriska halkan laga hadlayaa waa qof kasta oo bini aadam oo ilaahay abuurtay waa inaad jeclaato labadan qaynuun way isku ladhayn dadka qaarkii waxay isku dayaan inay ilaahay istusaan ilaahay baan caabudayaa oo erudiin baan ahay kan baan ahay intaasoo jeer baan tukadaa laakiin dadkii bini aadanka ee u abuurtay ay ku tuntaan ilaahay taas ma aqbalayo labada qaynuun way isku xidhayn ereyga ilaahay waxaa ku qoran injiilka haddii qof yidhaahdo ilaah baan jecelahay oo uu walaalkiis neceb yahay waa beenaale maxaa yeelay kan aan jeclayn walaalkiisa uu arko sidee buu u jeclaan karaa ilaah uusan arag marka waxa weeye labada qaynuun way isku xidhan yihiin caabudaadda ilaahay iyo jacaylka ilaahay aada u hayso iyo jacaylka aada bini aadankiisa u hayso iyo wanaagga aada u hayso waa laba isku xidhan waktigan haddaba walaalayaal uu soo dhacay cudurkan la yidhaahdo coronavirus dhibaatadu ay jirto xagga dhaqaale xag bulsho iyo dhinac kasta uu uga saameeyey bini aadanka waxaa jirta bulsho soomaaliyeed oo maanta u baahan deris runa bulsho soomaaliyeed oo u baahan walaalo sida ciise masiix halkan ku sheegay bulsho soomaaliyeed oo u baahan saaxiib waa dadka internally displaced people ama dadka soomaaliya ku ah qaxootiga dhexdiisa soomaaliya dhexdeeda waa dadka xanuunsanaya waa dadka faqiirka waa dadka ka tirsan qabiilada la yaso xag dhaqaale iyo xag bulshada loo faquuqo faquuqa lagu hayay generation ilaa fac kacfac taasoo keentay maanta inay dadkii ka haraan oo maanta ay yihiin dadka ugu hooseeya haddaba walaalayaal waktigan oo bishii ramadaan soomaalida usoo gashay muslimka waxaan kula talinayaa inay dadka ka warhayaan oo ay u noqdaan deris ee aanay keliya ka fekerin dadka qaraabadooda waktigan xataa waxaa ilaahay mahadiya oo runtii aan odhan karaa waa amarka ilaahay waxyaalo badan oo ilaahay aan amarkii ahayn baa loo saaraa laakiin tan waa amarka ilaahay in waktigan dad badan oo soomaaliyeed oo kuwa taajiriinta ah runtii hataa dadkan faqiirka ma tigi karaan meel ay waktigan ay dembi dhaaf u doontaan maka iyo madiina laakiinse cudurkan daraaddii ay la xidhay oo aan la tegi karin halkaa waxaa soomaalida uga seefgaroobaysa lacag milyuumaad ah oo ku dhici lahayd runtii qasnada sacuudiga oo aan u baahnayn lacagteena
waxaan markaa Soomaalida ku gubaabinaya inay dadka ay dhowrka bilood ee soo socda at least ee laga baxay cudurkan corona ay lacagta ku biilaan dadka ee ay u dhigan xaj dambe. waxaan idin ballan qaadayaa ama aan hubaa inuu Ilaahay raalli ka noqonayo inaad dadka biishaan waqtigan oo uu ka jecel yahay 100 xaj oo aad tagtaan. waxaan idin rajaynayaa Ramadaan fiican oo barakaysan. waana mahadsantihiin.